Waxaa aad u badan waayahan dambe inaad aragto dad Islaam ah oo weliba ahludiin ah oo inta badan caraysan oo uu cafiska iyo dulqaadkuba ku yar yahay. Dhab ahaantii Islaamku cara ma faro, mana dhiirigeliyo, ee waxaa carada dadka ku qalqaaliya waa Shaydaan oo raba inuu dadka wanaagsan ee ahludiinka ah ka lumiyo dariiqa toosan ee cafiska iyo cara la'aanta lagu gaaro. Ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa uu leeyahay: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. macnaheedu yahay Shayddaanku wuxuu rabaa ama doonayaa oo keliya in uu dhexdiina dhigo cadaawad iyo caro oo timaada markaad khamriga cabtaan oo aad sarkhaantaan ama aad dheeshaan khamaarka oo aad isku dishaan hantida aad ku kala heshaan khamaarka, oo uu idinka celiyo xuska Alle iyo salaada. Ee ma tihiin kuwa ka haray khamriga iyo khamaarka si uusan Shayddaanka uga dhigan waddo uu idinku kala dilo. Rasuulka sallallahu calayhi wasallam waxa uu yidhi: ina alqadaba min ashaytaan wa ina ashaytaana khuliqa min annaar وإنما تبرد النار بالماء فإذا قضب أحدكم فليتوضأ. caradu Shayddaan bay ka ahaatay, Shayddaanna dab baa laga abuuray, dabkana biyo ayaa lagu damiyaa. Ee axadkiina hadduu caroodo ha weyse qaato. Ilaahay sareeyay wuxuu ammaanay kuwa carada qariya ee dadka cafiya, oo waxa uu yidhi Allah subxaanahu wa tacaala: waalkaadimiina alghayda waalcaafiina cani innaas wallaahu yuxibbu almuxsiniin. kuwa caradooda qarinayo ee dadka cafinaya, Ilaahay wuu uu jecel yahay dadkaasi wanaagsan. Rasuulka sallallahu calayhi wasallam waxa uu yimid nin oo yidhi: ii dardaaran rasuul Allow. Wuxuu yidhi: ha caroonin. Marar badan buu ku celceliyey oo uu yidhi: ii dardaaran rasuulkii Allow. Markasta rasuulka sallallahu calayhi wasallam wuxuu dhahayay: ha caroonin. Sidoo kale rasuulka sallallahu calayhi wasallam waxa uu yidhi: من كظم غيظا وهو يقدر على إنفاده ملأه الله أمنا وإيمانا. qofkii qariya caradiisa isagoo uu awoodo inuu ka dabaqtamo oo fuliyo, Ilaahay baa ka buuxiya amni iyo iimaan. Qur'aanka waxaa ku badan aayado uu Ilaahay rasuulkiisa ka codsanayo inuu ka jeesto oo uu cafiyo gaalada iyo munaafiqiinta, oo uusan dhibkooda wax ka soo qaadin inta ay arrintoodu ku eg tahay afka baarkiisa. Allah subxaanahu wa tacaala waxa uu yidhi: فأعرض عنهم وتوكل على الله. ka jeeso xaggooda oo alla tala saaro. aayad kale waxa uu ku leeyahay Alle: فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. ka jeeso xaggooda oo u sheeg markasta waana xeelo dheer. فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون. ka jeeso xaggooda oo sugo, iyaga waa kuwa loo kaadiyee.
ilaahay subxaanahu watacaala aayad kaleetana waxa uu ku yidhi faacrid canhum xataa yakhuutuu fii xadiidin hayri ka jeeso nebiyow xaggooda ka jeeso ilaa ay dhex galaan sheeko aan ahayn mid xun ay hadda ku jiraan. sidoo kale waxaa qur'aanka ku badan aayado uu ilaahay rasuulkiisa kaga codsanayo inuu iska cafiyo kuwii ka horjeeday. fasfax canhum waqul salaam fasawfa yaclamuun. iska cafi xaggooda oo ku dheh nabad ha idin sugnaato, dib dambe ayay ka ogaan doonaan jasada ay ka helaan xaqa ay kugu diideen. fasfaxi safxa aljamiil, iska cafi weliba cafis wanaagsan. rasuulkeenna muxamed sallallahu calayhi wasalam wuxuu ahaa mid dhab u qaatay tarbiyada xagga rabbi oo oga imaanaysay, oo waxa uu ahaa mid cafis badan oo una caroon kuwa ka soo horjeeday inta ay arrintooda ku koobneyd qadiyadda afka. ilaahayna waxau ku ammaanay nebigiisa, taasoo waxa uu yidhi fabimaa raxmatin min allahi linta lahum walow kunta faddan khaliida alqalbi lanfaduu min xawlik facfu canhum wastakfir lahum washaawirhum fi lamri faidaa cazamta fatawakkal cala allah. raxmadda xagga alle kaga timid darteeda ayaad uga jilicsanaatay. haddaad ahaan lahayd mid dabeecad adag oo qalbi adag, way kaa kala cayaaci lahaayeen. iska cafi oo dembidhaafna u dalab, arrimahana kala tasho, oo haddaad go'aan gaartana rabbi tala saaro. rasuulkeena sallallahu calayhi wasalam isagoo awood leh oo jooga magaalada madiina ayay yahuudda ku oran jireen mowt ha kugu dago, intay iska dhigaan sidii wax salaamayo rasuulkeena sallallahu calayhi wasalam. rasuulkeenna waxa uu ku gaabsan jiray wacalaykum, ilaa ay maalin maqashay caaisha radiallahu canha iyagoo oo sidaasi ku habaarayo rasuulkeena sallallahu calayhi wasalam, oo ay markaas uga jawaabtay habaarkooda mid la mid ah iyo lacnad. laakiin rasuulkeena sallallahu calayhi wasalam caaisha waxa uu ku yidhi, caashaay dhimri oo tartiib, anigaaba u jawaabay, adiga dhimri oo dulqaad muuji, waayo dhimrintu wax kasta oo la geliyo waa wanaajisaa, wax kasta oo dhimrintana laga saarana way xumaadaan. ugu dambayntii walaal, waxaa inoo muhiim ah inaan mar kasto daraasayno sida aysan diinteennu marna u doonaynin carada sida ay u doonayso cafinta iyo dulqaadka, si ay diinteenna u noqoto mid mar kasta dadka ku soo jiidata wanaagga iyo wax cafinta. arrintaasna waa mid ku tusinaysa sida islaamka ugu weyn tahay caro qarinta iyo cafinta dadka. su'aal ma ku weydiiyaa walaal,